بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي وأنا السلامية ميل كستوس كلا جوبتان إيه حلي كستا إذن تاينا خير بدن بار إذن رجينيا كسو دوادا هورومري مطبخاقا إيو 10 عصب أما وصفة عصب waxaan sameyneynaa maanta digaag aan inaba caadi ahayn aad iyo aad u dhadhan macaan muuqaalkiisana aad aragtaan waxaan rajeynayaa wasfadan ama karintani ina ay idin cajabin doonto insha Allah saan bal u sameyneyno iyo waxyaabahan ka sameyneyno isla socod wanaagsan iyo ka faa'iideysi wacan bismillah halkan waxaan kusoo riday kiilo iyo bar taqriiban digaaga waxaan ku daray in yar oo saxaraan iyo khal yar oo isku soo ridiyay waxaan ku darayaa xawaashiyadii filfil iyo kasbaro iyo kamuun iyo kurkum iyo in yar oo sinjibiil iyo xawaashiyadii oo dhan waxbaas wuxuu ku xidhan yahay qof walba hadu isugu jecel yahay waxaan ku soo darayaa babriko qofka aan babrikada haysan qaacad yar oo basbaas cas oo ku kaaftoomi karaa intaas waxa dheer milixdii waxaa kaloo kusoo darayaa waxoogay toona intoona waan ku darayaa kadibna intaas ayaan isku cajiimeynaa oo isku walaaqeynaa toontii waa tan intaas markaan isku cajimo oo si fiican iskugu walaaqo waan yara dabooli doonaa markastoo saas oo kale u xawaashayso digaaga iyo hilibkaba xataa kalluunka aad xawaashayso kadibna aad yara dhigto waa markasta oo xawaashida kugu kugu radaayo oo uu ku macaanaanayo si fiicanna uu kugu dubmayo ama uu kugu karsamayo intaas markaan sidaa isku yiri waxoogaa yarna uu isoo yaalay oon soo yar daboolay maqliga ayaan soo qaatay maqligana in yaroo saliida ayaan ku shubay subdana waad ku shubi kartaa kadibna saliida ma badna wataa qaacadii ama gudihii maqliga qayb ayaa muuqata in yarun baan ku shubay dabeetana digaagii ayaan kusoo gurayaa si aan dhinac kastaba uga solo digaagii dhinacaas markuu inooga soo solmay ama inooga soo shiilmay dhinacyada kalena u rogeynaa si uu dhinac kastaba uga casaado qaybtii kalena maqligan kale ayaan kusoo shubay waxaan doonayaa kaa hore maqligaas hore igu yaraa kadibna dee waxaan doonayaa in hore u kariyo markaa laba maqli ayaan kala saartay xaggaasaan ku dubay dhinanka kale aan ku dubay marka hadda markuu inoo soo wada casaaday labada dhinac hareeraha ayaa girgirada ayaan haddana ka yara dubayaa si uu afarta jihaba uu casaanka noqdo markuu inoo dubmay ama inoo shiilmay anigaas waan ka gurayaa maqligii ayaan ka saarayaa oo waxaan ku guranayaa blade qaybtii kalena waa tan iyadana saas oo kale baan u suli doonaa insha Allah waa kaas muuqaalkiisu saas buu u egyahay laakiin haddana ma bisla oo gudaha kaafika ma aha biseelkiisu halka waxaan kusoo riday in yaroo saliid iyo in yaroo basala intaa yara saliida intaa yara basasha aan markaa isku irsho wixiyo waxaan kusoo daray in yar oo toon soo hoolay ama soo xoqay intaas marka isku yar hurtayna waxaan kusoo darayaa xabuub aan soo shiiday iyadana xabuubtii ama maxaan dhahnaa xabuub maan garanaya aniga haddii wax kale loo garanaya hala isoo sheego xabuubtii markaan kusoo daray intiiba haddana isla yar kartay intaas markay isla kartayna xawaashidii intii aan kii hore ku daray sinjibiilkii filfishii kurkumkii allahumma salli calaa maxamed geedihii ayuunbaan intii ka hore aan ku darin baan kusoo darayaa babrikadii laakiin wax gurgura kumaan darin kaa horena kumaan darin oo digaaga aan xawaashiinayay kanna wax gurgura kuma daraayo intan baan ka sameynayaa aad bay u fududahay wax guri kasta laga heli karayo weeyaan oo aan maaragtay wax badan kaaga baahnayn intii markaan isku walaaqay waxaan kusoo shubay in yaroo biyo ah si ay isku dhex galaan oo iskugu yar karaan intaas markii saas isku dhex gashay
waxaan soo qaadayaa biyo, biyahan markaas aan ku karkarinayaa, laakiin milixdana waan ku daray waad aragtaan. Biyihii iyo khudaartii iyo xawaashidii markay isku soo kareen waa kan meesha waxaan ka rabaa inuu maraq yaro fiican iiga soo baxo. Kadibna digaaggii aynu dubnay ayaan ku soo gurayaa. Digaagaan ku soo wada gurayaa, biyaha digaaggii way la siman yihiin waan ka arkay digaaggii in yar baa muuqata. Waan daboolayaa wuu karayaa ilaa intay biyahaas yaraanayaan oo digaaggiina gudaha ka bislaanayo. Maraqna noqonayaa maraq yaroo jaamuda oo yar. Xaggan waxaan ku soo shubay qaji ama qaji wuu casaaday laakiin qaji buu ahaa. Ku akhtarna waad ku darsan kartaan. Halkan maraqii waa ii soo bislaaday digaaggii maasha Allah aad bay u udgoon yihiin. Dabadeedna lugihii ayaan ka dhex gurayaa maraqii. Lugaha markaan arkaysa maraqi siduu u yaraaday. Bakeeriga yar aan biyaha ku cabno ka dhexe yacni ka dheer maaha ka yar shahana maaha ka dhexe biyaha ku cabno. Yacni wuu labadii weeyaan haday u badan tahay. Si fiican ayuu noogu bislaaday. Halkan digaaggii baan ku soo guray lugihii. In yaroo soya sauce iyo filfil yar aan isku soo walaaqay ayaan dusha ka marmarinayaa. Ovenkan yar gelinayaa ilaa 25 daqiiqo ayuu igu soo horjirayaa si uu igu soo qalalo oo sauce uga qalalo. Dushana oo casaankeena uu soo siyaado. Maraqii halkan aan ku soo shaandheynayaa si caleentii baqduuniska iyo qaji iyo xashiishka yaraa uga haro oo maraqa uu noqdo maraq saafiya. Digaaggii waa isoo yar solmay waa kan casaan yar buu soo qaatay. Waanu soo qalalay oo maraqiisii hore uu soo qalajistay. Bilaarkan aan ku soo guray kadibna maraqii aan shaandheynay ayaan dusha kaga shubayaa. Wasfadan waa wasfada inaba caadin aad digaag markaas loo sameeyo u macaan yahay. Inta tijaabisay aragtay. Inta aan tijaabin baan leeyahay soo tijaabiyo oo soo arkay insha Allah. Idinka ayaa u bogi doona. Dusha waxaan kaga soo yaacay xogaa yar baqdoonis ah. Baxaa la dhahaa caleenta kamsaradana waad ku samaysan kartaa ku qurxin kartaa. Wax alla waxa aragtid ayaad ku qurxisan kartaa. Waa kaas waad aragtaan maasha Allah. Saas buu u qurxoon yahay. Dhadhankiisana waa maasha Allah ayuu yahay. Nakooyinka iyo xawaashidana qof walba intii wuxuu jecel yahay uu ku dardarsanayaa. Wax alla waxa doontana waad raacinaysaa qadada iyo cashada labadaba waa kuu galayaa. Waxaan rajeynayaa in kitida lagu camiri doono. Caruurta lagu casuumi doono. Martida lagu soo dhaweyn doono casuumadaha insha Allah. Anigu marka bariis cad ayaa igu bisil laakiin wax alla wixii aad rabtid ayaad raacsan kartaa. Maraqa saas baad dusha ugaga shubaysaa. Rooti baa ku cuni kartaan. Khubus baa samayn kartaa. Qamadi, burqul, digir, maxaan dhahaa wax alla garow wax alla waxa aad raacisid ma diidaayo maasha Allah. Sidaas oo kale ayaad halkaas aan bariiska ka geliyay. Wax alla waxa kala tirnay oo dhan ayaad ku bedelan kartaa insha Allah. Kulli wasfooyin badan oo digaaga kala duwan waa soo gelinaynaa. Waxaan rajeynayaa gabdhaha Soomaaliyeed iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeedba in alla intii jecel inay digaaga si kala duwan u samaysato in ay channelkan la soo xiriiri doonaan oo ay ka faa'iideysan doonaan insha Allah biidhnillaahi baari. Halkan aad ila soo gaadheen. Daawashadiina waa ku mahadsantihiin. Waxaan rajeynayaa wasfooyinkan oo digaag iyo aniga wasfooyinkan soo gelinaya digaag iyo waxay u badan yihiin macjanaad insha Allah. Dadka oo Soomaalida oo afka Soomaaliga ku hadla oo dhan inaga Soomaaliya afka Soomaaliga kuma hadlaan dad kale ay nagula hadlo afka Soomaaliga Itoobiya iyo Kenya wadagani iyo Djibouti iyo meel kasta dad degan baa af Soomaaliga yaqaana. Markaas waxaan leeyahay dadka afka Soomaaliga ku hadlo oo dhan hadaa rabtaan macjanaad iyo digaag kala duwan channelkan la soo xiriira insha Allah. Waana mahadsantihiin daawashadiina ku mahadsantihiin. Sidaa iyo waxaan idinku dhaafayaa amaano Allah iyo casharo dambe oo xiiso badan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.